السلام عليكم أصحاب الشرف ترى سلامتي marka hore meel baad joogtaan iyo si walba oo daawanaysa muuqaalkan dabcan halkan aan ku soconno gaari ayaan saaranahay waxaan ku wajahnaa inaan soo indheydhayna dhul ku yaala muqdisho duleedkeeda dabcan dhulkaas oo aad u jeedaan quruxda iyo bilicda uu leeyahay dabcan waa dhul raqiis ah jaay iyo jidad baa uu leeyahay waa xaafad cusub oo hadda la deegaamaynayo xaafadaas waxay ku talaa dabcan sida aad muuqaalka ku arki doontaan insha allahu tacaala inta u dhexeysa muqdisho iyo deegaanka daarusalaam halkan aad u jeedaan waxaa laga aas-aasayaa masaajid aad u qurux badan aad u jeedaan masaajidkan dhulkan dhammaan halkaas aad u jeedaan waa jaamacadda muqdisho waqooraha barigooda dhulkan qofka yaqaan ayaa garanayo waa dhul aad u qurux badan deegaan ahaan oo jaay leh oo koronto leh oo wax walba adeegyada asaasiga leh masaajidkan ayaa hadda la aas-aasayaa iyo madaraso isku xiran waa deegaan cusub oo hadda la deegaamaynayo waxaan idinkugu soo duubay waxa weeyaan qofkii hadda fursad heli kara ee wax haysto dhulka maadaama hadda uu degan yahay inuu ka faa'iideysto waa hubaal dhulkan hadda waa raqiis weliba waa qiimo macquul ah oo qofka aad u raaligelinayo laakiin haddii masaajidkaas la dhiso oo deegaamadaas la dhiso waa hubaal dhulkaas wuxuu noqonayaa dhul adigo aadan gedi karin marka hadda qofku waa heli kara fursad ahaan waxaan leeyahay inuu ka faa'iideysto muxuu ahaa wax uu ku yeesho masaajidkaas aad u jeedaan quruxda badan ayaa hadda laga aas-aasaya deegaanka oo laga dhisaya halkaas ujeeda saraxaadna waa deegaan daarusalaam waa deegaan aad u fiican dhul ahaan ma kala fiiri korontada xataa way taallaa wax laga waynayo oo habeeraatee ma jirto weli wuu cusub yahay deegaanka hadda lama degin xaafadda waxaa leedahay xaafadda daarulhima ayaa loo yaqaanaa mar dhow ayaa insha allah xarig laga jooda markii dhismaheeda uu rasmi noqdo hadda masaajidka jaay ayaa saaran kulli dhul cabiran oo muxuu ahaa lagu talagalay muxuu ahaa deegaan weeyaan marka xataa korontadii way ku jirtaa dhulkan wax ka maqan ma leh total fursadda waa mar qofkii waa heli karaa ka faa'iideysto nambarada meesha ku qoran kala xiriir insha allah